السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي كوسو دوادا kanaalkayga markale waa walaalkiin Abshir Fitness muuqaalkan waxaan rabaa in aan uga jawaabo Q&A ama su'aalo iyo jawaabo inaan ku bixiyo sidaad ogtihiin qaybta community-ga YouTube-ka iyo sidoo kale Instagram-kayga waxaan soo dhigay soo weydiiyay su'aalihiina la xiriira sida loo train gareeyo Ramadaanka ama cuntana loo cuno yani qaabka cunto cun lagu train gareyn lahayd inta lagu jiro Ramadaanka muuqaal ayaan ka soo sameyn doonaa ayaan idinku yiri muuqaalkan ayaan hadda ka sameynaa su'aasha ugu horeysa waxayna soo weydiiyay Nihal Bulshaawi Nihal waxaan filayaa magaca gabdheed inuu yahay Nihal su'aashu waxay noqonaysaa please ii sheeg sida ugu fudud calool lagu jaro without gym caloosha sida ugu fudud ee lagu jari karo without gym waa number 1 inaad diet-kaaga saxdid oo cuntadaadu ay saxan tahay number 2 inaad cardio samaysid cardio wax kastoo wadnaha ka shaqaysiinaya sida orodka xarika boodka socod badan mashiinka orodka inaad ku carartid waxyaabahaas dhan ayaa kamid ah iyo jimicsiyada caloosha inaad samaysid intaas ayaa calool lagu jari karaa without gym su'aasha labaad Hayba ayaa soo weydiiyay Hayba wuxuu yiri Ramadaanka anoo sooman haddii aad gym-ka aado lockdown baa jira xilliyada kale ka waran Ramadaanka adoo sooman gym waa aadi kartaa inkastoo ay fiican tahay habeenkiina aado haddii aad habeenka leeyahay way maalintii waa aadi kartaa laakiin maalintii waliba isku day xilliga hore inaad ka aadid inta wali jirkaagu uu yani foodkaaga systemkaaga ay cunto ku jirto Ramadaanka inta badan qofka aad ayuu yani injury ugu keenaysaa haddii uu yani biro culus qaado sababtoo kale jirkaaga dehydrated waa biyo dhan kuma jiraan marka aad ayuu qalal u noqonayaa marka waa aadi kartaa laakiin don't lift heavy walaas badan ha qaadin su'aasha kale waxa ina soo weydiiyay Ahmed wuxuu dhahay cuntada ugu fiican ee lagu afuri karo ee jimicsiga xilliga ugu fiican Ramadaanka cuntada ugu fiican ee lagu afuri karo waa inay ka koobnaataa fast digestion protein jirka uu ciyow galayo iyo fast digestion carbs ama carbohydrate oo ciyow jirka galayo proteinka ugu fudud oo jirka hore ka burburiyo waxa kamid ah whey protein tusaale kale waxaad ku afuri kartaa whey protein iyo oats iyo banana oo kale isku shiidan kartaa oo afuran caadi ahayn maybe some other fruits ku darso ku afur gym-ka xilliga ugu fiican hadda Ramadaanka aniga waxaan dhici lahaa habeenkii ayaa ugu fiican qofku markuu cunto cuno kadib markaas soo train garay tusaale kale afurkaaga marka cuntid xoogaha yar joog soo train garay kadib haddana another meal cun Levisan wuxuu dhahay waqtiga ugu fiican ee la train garay Ramadaanka hadda ayaan ka soo hadlay taas soo waan ka gudbeynaa Princess Sophia waa la mid ayadana best time to work out sidaan hore u sheegay Ramadaanka inta lagu jiro waa markii aad cunto kadib haddii aadan jaanis u heleyn waxaan dhahay waxa si fiican early in the day habeen maalinkii xilli hore inaad train garaysid haddii aadan jaanis u heleyn laakiin still train garay but don't lift heavy waa jirkaaga dhaawac ayuu nugul yahay maadaama uu qalalan yahay and Mushawi wuxuu dhahay isagana how to train effectively during Ramadaanka intuu qofka ku jiro ma kula talinayo inuu heavy lifting uu sameeyo waxaan kula talinayaa qofka Ramadaanka inuu ku jiro inuu mind muscle connection muruqa iyo maskaxda uu ka shaqaysiiyo si tartiib ah oo u train gareeyo si uu injury iskaga ilaaliyo Najib wuxuu leeyahay meeqa carbohydrate iyo protein iyo fats ayaan u baahanahay ama calories Najib inta calories iyo macros u baahan tahay waxay kugu xiran tahay adiga waxaan qofka tahay ku xiran tahay weight-kaaga dhirirkaaga miisaankaaga activity level-kaaga qof maalintii fadhiyo ma tahay qof socod badan ma tahay all those things ay ku xiran tahay so waa arin si qaas in loo calculate gareeyo baa so hadda kaliya su'aashaada intaan arko intaas u baahan tahay ma dhihi karo okay Abdiqani wuxuu leeyahay afur kadib inaan train gareeyo ayaan rabaa oo gym ka tago maxaan ku afuraa ka dhigtaa sidaan hore u soo sheegay protein iyo carbohydrate fudud ka dhigo tusaale kale oats banana iyo whey protein isku shiido kale afur ahaan ama oats iyo eggs oo kale afur ahaan ka dhigo soo train gareey kadib ka soo laabo chicken and rice oo kale ka dhigo hadana post workout kadibna hadda suxuurtaada that's amazing and Luqman Muhammad wuxuu leeyahay oats miisaan dhimid ma loo isticmaali karaa yes oats miisaan dhimid waa loo isticmaali karaa miisaan dhimid markii la dhahayo overall calorie ayaa muhiim ah inta calorie ay qaadanaysid dhamaan ayaa muhiim ah oats way ku soo gali kartaa oats ka high in calorie maahan calorie-gooda waa iska moderate I'm Hamada wuxuu leeyahay macallin video nooga soo sameeyay sida cardio loo sameeyo waqtiga ugu fiican la sameeyo
cardio horta waxa ugu fiican cardioga tusaale oo kale qofka markuu calooshiisa u baahan yahay oo carbs ku jira jirka inta badan energy ahaan carbohydrate ay u isticmaalaa laakiin haddii aad baahan tahay markii aad cardio samaysid jirkaaga fat stores ka isticmaali doonaa marka cardio maxaa kamid noqon karo orada kamid noqon karo mashiinka orodka kamid noqon karo xarika booda noqon karo all those things cardio su-aasha kale waxaa ina soo weydiiyey maxamed cabdalla wuxuu leeyahay haddii uu dietkeyga saxan yahay sidee belly fatka loo saaraa training ahaan video nooga soo samey dietkaaga haddii uu saxan yahay which means caloric deficit inaad tahay oo jirkaaga intuu sidiis inuu ahaado ka yaraad cunaysid waxaad ku dartaa cardio ku dar jimicsiyada calooshana ku dar belly fat kuu baxayo ismaaciil xasan wuxuu leeyahay saaxib ka waran gym ma aadi karaa hal saac furka ka hor haddaan fat gubay yes waa aadi kartaa haddii aad fat gubaysid hal saac furka ka hor waa aadi kartaa weliba waa xilliga ugu fiican oo jirkaagu fatku isticmaali doono zak wuxuu leeyahay weight gain ayaan ku jiraa afur kadib waa la xiraa intaan afurin ma samayn karaa so weight gain ayaan ku jiraa gymka wuxuu leeyahay afurka kadib waa la xiraa intaan afurin gym ma samayn karaa sidaan hore usoo sheegay haa waa samayn kartaa laakiin isku day maalinkii xilli hore inaad samaysay inta jirkaaga xoogaha energy ku dambeyso aad train gareyn kartid marka xilligaas train garey haddii aad awoodi weysana galabkii waa train garey kartaa laakiin don't lift heavy because jirkaaga markaas uu qalalan yahay injury ayuu nugul yahay asxaabta su-aalaheena intaas ayay ahaayeen dhammaan intii liisoo weydiiyey waan ka wada jawaabay marka I hope waxaan rajeynaya inaad wax badan ka faa'iideen su-aalaha iyo jawaabaha sidoo kale su-aalaha kale aad qabtiin qaybta comment sectionka ayaad igu soo weydiin doon kartaan dhammaan ayagana waan kasoo jawaabi doonaa haddii aad ka heshay muuqaalka like haddii aad ka cusub tahay channelkayga please subscribe asxaabta marka videoga like saartaan dad badan ayuu gaari doonaa marka waxaan idinka codsanayaa muuqaalka inaad like saartaan waa mahadsantihiin waxaa inoo balana inaan murqa dhisno bye bye